madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar 2017 saxeexay sharciga isgaarsiinta qaranka kaasi oo dawladdu si weyn ugu dabaaldegtay ansixintiisa. Qodobada ugu weyn ee sharcigaasi ku jira waxaa ka mid ahaa dejinta sharciga maamulaya hay'adda isgaarsiinta qaranka iyo dhismaha hay'addii hagi lahayd isla markaana maareyn lahayd isgaarsiinta qaranka. Qodobka tobnaad ee sharcigaasi waxa uu ogolaanayaa dhismaha guddiga maamulaha hay'adda isgaarsiinta qaranka oo ka kooban 9 xubnood. kaasi oo 2 ka mid ah ay ka imanayaan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, 3 xubnoodna ay ka imanayaan shirkadaha isgaarsiinta, xubinna ay ka imanayso bulshada rayidka ah, iyadoo xubinta 9aad ay ka imanayso sharci yaqaanada. bishii May ee sanadka aynu soo dhaafnay 2018 ayaa sidii sharcigu dhigayay waxa wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknoolajiyada qaranka Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay aasaaska hay'adda isgaarsiinta qaranka. hay'addaasi oo awoodaheeda ay ka mid yihiin horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda shirkadaha, ruqsad bixinta, diiwaangelinta iyo nidaaminta xeerarka isgaarsiinta. haddaba aasaaska hay'adda isgaarsiinta qaranka kadib waxaa soo baxday in wasaaradda iyo shirkadaha isgaarsiinta qaarkood aysan isku raacsanayn sida loo dhisay guddiga maamulaha hay'adda isgaarsiinta qaranka. muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay 3 xubnood ee shirkadaha isgaarsiinta u matalaya guddigan. 3 xubnood ee ka midka ah guddigan xilligan talada haya waxay ka yimaadeen shirkadaha Hormuud, Somtel iyo Telsom. hase yeeshee 9 shirkadood oo arrinta ka biyadiisan waxay ku doodayaan in shirkadda ugu weyn shirkadaha oo ah Hormuud ay awood weyn ku leedahay guddigan. waxay kaloo ku doodayaan in 2 ka mid ah guddiga ay matalayaan shirkado xidid wadaaga, kuwaasi oo kala ah Hormuud iyo Telsom. su'aalaha ay shirkadaha 9 hor dhigeen wasaaradda iyo guddiga ayaa ah sidee ayaa shirkado tartan ugula jira suuqana nooga tun weyn ay haddana dhinaca kale u qaadan karaan kuraastii guddigii maamulayay shirkadaha oo dhan. sidee ayay dhexdhexaad uga noqon karaan markii ay dejinayaan shuruucda wada qabanaya shirkadaha sida shuruucda laysan bixinta iyo kuwa ku saabsan tartanka suuqa iyo hirarka isgaarsiinta. Sayid Maxamed Cabdulle waa afayeenka 9 shirkadood ee diidan qaabka loo qaybiyo xubnaha guddigan maamulaha hay'adda isgaarsiinta qaranka. qaab dhismeedka hay'adda loo maray baa la baal maray qaabkii sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyay in la qoro wax ka duwan baa markii la dhisay shirkadda loo dhisay. waxa weeye marka taas baa shirkaduhu marka isgaarsiinta oo 9 shirkadood aan sheegin oo meesha ku qoran soona saaray bayaanada kala duwan bishii ilaa iyo bishii laga soo bilaabay bishii June sanadka 2018 bayaanada kala duwan soo saarayay waxay sheegayeen oo ku cadeynayeen in sharcigii la baal maray oo wixii meesha ku qoraa wax ka duwan la maxarkay. sidee loo baal maray qalaal waxa loo baal maray sharcigu sidii wuxuu ku salaysnaa in 3 xubnood ay ka yimaadaan 9 xubnood oo la dhisayo 3 ka mid inay ka yimaadaan shirkadaha isgaarsiinta oo sida ku imaanayaan wada tashi iyo inay yacaan waxa weeye dhexdooda shirkadaha isgaarsiinta ka tashadaan kabacdina 3 qof la soo xulo laguna soo xulo aqoon iyo way aragnimo. sidaas marka si ka duwan baa loo sameeyay shirkado maxaa la yiraahdaa sister company ah oo magacyada kala baxay laakiin hal company ah bay ka yimaadaan dadka badankiisa. muddada ay xilka haynayaan guddigan waa 4 sano. miyaysan idin la ahayn shirkadaha kalena inay kalkooda sugaan oo iyaguna 4 sano kadib ay ama u tartamaan ama buuxiyaan jagooyinka? waa sax 4 sano haday hayaan laakiin kuma qoran 4 sano marka hayaan shirkadii laga tagaalasiinaya. waxa weeye sharci si u qoran yahay hadhowna haddana lagu soo xulaya. qodobka 35aad ee xeerka isgaarsiinta qaranku waxa uu hay'adda isgaarsiinta qaranka awood u siinayaa bixinta iyo maamulka hirarka isgaarsiinta, laakiin qorsheynta hirarka iyo sharcigooda waa qodob ay haatan hay'addu wado. qodobka 41aad ee sharcigu waxa uu hay'adda awood u siinayaa bixinta, goynta iyo cusboonaysiinta ruqsadaha. labadan qodob waxay ka mid yihiin qodobada ugu xasaasisan ee shirkadaha ka hor yimid guddigan ay ka cabanayaan oo ay ka digayaan in lagu cadaadin doono. Sayid Maxamed Cabdulle waxa uu leeyahay tallaabooyinka ilaa haatan la qaaday waa kuwan cadaalad u falayn shirkadaha yaryar. waxa weeye waxaan loo soo diray documentii oranaya waxaad bixinaysaan laysinkaasna waxa weeye waxaad hay'adda waxay doonaysaa in laysin idin siiso. annaguna waxaan haysanaa laysin wasaaradda isgaarsiinta ina siisay oo dawladda siisay federaalka ah. arrintaas marka waxa noo noqon weeyday waxaan laysinkii dawladda cusub baa dhalatay. marka isla markaasna annagu waxaan weynay wax alaala wixii adeeg ah oo looga baahnaa regulatory frequency baan weynay. waxaan weynay wax alaala wixii isgaarsiinta aan ku shaqayn lahayn ku adeegi yacnaha signalska iyo wixii la oran jiray MNC-ga iyo wixii la oran jiray DC-ga la rabay in regulatory bixiyo. حتى waxaan weynay frequencies baan weynay
marka regulatorku waxay ahayd inuu u adeego shirkadaha oo siiyo frequencies, inuu siiyo bahalka la yiraahdo lumber plan, inuu siiyo bahalka la yiraahdo dhammaan wax internationalka kula xiriir lahaayeen dhammaantood. marka waxa weeye waraaq socod ordaysa oo tan la yiraahdo 2 milyan baa ku qoran liman karaba babadarkeeda noo ahaa inuu ciidana intii la washidaan oo soo marnay. yaa idin diiday ma qoraal baa la idinku diiday mise waa afka uun in frequency la siiyo yaa idin diiday saasami? walaal frequencies-ka hay'adda laftigeeda aan ugu tagin dhowr jeer waxaana nagu yiraahdeen shirkadihii kale baan la xiriireynaa, waxaan raadinaynaa bal in frequencies-ka ay macnaha wax ka helaan wax ka heshaan. markii ka bacdina waxba waa nooga soo waayeen, waxay yiraahdeen waxaan ka helnay ma jiraan. marka halka waxaa ka cadfin shirkadii ay hay'adda laftigeeda ay frequencies bahayn oo shirkadda kale isticmaalayaan. qodobka 4 ee xeerka isgaarsiinta qaranka ayaa ah kan xeerinaya danaha iska hor imanaya, gaar ahaan sida xubnaha shirkadaha u matalaya guddigan ay ugu cadaalad fali karaan dhammaan shirkadaha marka ay noqoto dhinaca shuruucda iyo difaacidda wadaagga hirarka iyo weliba xuquuqda ganacsi iyo tartanka. dadka taageersan qaabka uu xilligan u dhisan yahay guddiga isgaarsiinta qaranku waxay ku doodayaan in xubnaha matalaya shirkadahan ay ka turjumayso baaxadda shirkadaha oo ah kuwa dalka ugu weyn isla markaana canshuurta ay bixiyaan ay ugu ballaaran tahay. Cabdi Sheekh Axmed Roble waa maareeyaha guud ee hay'adda maamulka isgaarsiinta qaranka, waxaana soo magacaabay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. isagu waxa uu difaacay qaabka loo maray dhismaha guddigan. sharciga markii la baaskareeyay oo madaxweynuhu saxay wasiirka markaa hormuudka ah arrintan wuxuu horay dardargeliyey waqti badan ka shaqaynayay sidii loo xuli lahaa dadka. sharcigu siduu u qoran yahana ma dhahayo dadku shirkadaha kama imaan karaan ama shirkaduhu looma xadadin ama khayraad ma jirta ah noocaas waa inay noqdaan dadka soo xuleysaan inay sector ka imaanayaan keliya ku qoran sharciga. waaye laakiin idinku ma xaqiijiseen shakhsiyaadka ay shirkadu soo xuleen inaysan saami ku lahayn, inaysan u shaqaynin shirkadahan soo xulay soo magacaabay? anigu horta dadku wax falaya kuma jiro, dadka la magacaabay oo boorka kamid ah oo nomination ku yimid kama aan ah. hawsha waxaa lahayd wasaaradda soo xulidda dadka iyo mataqaanaa si u soo xuleen. ma ogi ogaalna uma ihi in conflict interest uu jiro iyo dadkan inay yihiin inay saami ku leeyihiin in la jiray kuma og. wax requirement dhahaya waa inay saas noqdaan ma jiro. requirement waxaa jira leh qofka ama saami ku leh ama wax kale ku leh inuu declare gareeyo shirkadda oo saamiga ku leeyahana markii issue hor yaalla oo yimaado guddiga inuu ka tagayso ama ka fadhiisto uusan doolda qayb ka noqon. laakiin wax haddana ma jiraan oo dhahayo qofka noocaas tan ku lahayo sharciga sidiisa xoogaa clear ma aha oo ma laha mataqaanaa dadku ku imaanayaan shirkada ka imaanaya. haddaba caqabadahan soo baxay, cabashada shirkadaha, wadatasho la'aanta iyo halka meeshan looga dhaqaaqi karo waxaan hordhigay wasiirka wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo teknolojiyada injineer Cabdi Cashuur Xasan. waxay dadka dalka isku qaldaayeen. aniga hadda waxaad ii sheegtay in hal shirkada isku wada qaadatay. Somtel kamid ma aha hormuud, Telesomna hormuud kamid maaha. waa 3 shirkadood oo ah entity oo maartay sharci qaanuuni ah ku dhisan, laysan leh, cashuur bixiya, lala xisaabtamo oo midka waajibaad iyo xuquuq isku mid ah ayay wada leeyihiin. marka shirkadahaas waa shirkado waaweyn oo dalka siiye isgaarsiin laga soo bilaabo looyacadda ilaa iyo Red Camboni. runtiina waa maadaama waxba ay yihiin 3 xubnood ay kusoo aaday laguma wada qanci karo. hadday cid kale ay ka timaadana waloon baa qaali lahayd, laakiin waxa xilliga ay shaqeynayaan waa 4 sano. waxa laga shaqeynayna waa dan guud. cid dan gaar shaqey karto lama arko. waa horumarinta sectorka guud. haddii cid isku dayda si gaara inay wax u samaysana qodob dhan oo qodobka 34 oo ayaa dhigaya oo maartay qodobka iska horimaadka danaha isdiidan ama conflict of interest wax afka qalaad loogu yaqaano. waaye qaar ka mid ah shirkadaha waxay leeyihiin kaliya ma aha xubnuhu inay dhinac u badan yihiin, waxaa kaloo jirta xubnahaas inay ka tirsan yihiin shirkadda ugu weyn waddanka, hormuud oo kale. shirkadaasna waxay ka cabsi qabaan in ay galaangal badan ku yeelato qaabka maamulka guddiga maamulaya hay'adda isgaarsiinta qaranka,
gacanta ay ku dhigto hay-adaha kalena suuqa laga bixiyo. 9 qofood oo ah hay-adda maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka, qofkii 9aad horta lama soo magacaabin sababa jira aawadood. 8 kale waxay ku leedahay hal qof ayay ku leedahay shirkadda aad magacaawday. hal qofna waxba kama bedeli kara. inta kale qofkaasna waa qof aan kulley is leeyahay dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo haddii celi weyso oo maaragtay wax shirkad gaara oo isaga markaa soo dirsatay danaheedu inuu meesha soo dhexgeliyo go-aamadii hay-ad gaara oo maarata ku keeno. 8 kale horta ma bedeli karo. hadduu isku dayana sidaan kuu sheegay waxaa qabanaya qodobka 34 markaas wuxuu noqonayaa xubin banaanka laga dhigo oo wuxuu waynaya qofka xubinnimadii oo maarata ku mutaystay inuu kaga tirsana maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka. waxa kasoo baxaya ama haddii la yiraaho laysan qiimahaas ha lagu qaado, cid gooniya lagama qaadaya, dhammaan waa si siman loogu wada qaadaya. haddii qiimo loo gooyo spectrumka ay isticmaalaan dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. haddii numberka ay isticmaalayaan qiimo loo gooyo dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. laakiin waxaan qabaa in sharcigan uu u roon yahay shirkadaha yaryarka, sababtoo sharcigan wuxuu qasbaya sanadkan gudihiisana aan hirgeli doonaa inay isku xirmaan dhammaan shirkadaha oo dhan, oo qof kasta oo muwaadina hal sim card oo dalka sida maaragtay caalamka ugu shaqeeyaan. marka shirkadaha yaryarka dan ayaa ugu jira inay sharcigan la hirgeliyo. sharciga ayaana maaragtay damaanad qaadaya horumarkooda. waxay hadda u baahan yihiin waa isku xir. haddii shirkadaha isku xirmaan, kuwa yararkana fursad ayay helayeen, kuwa waaweynna fursad ayay helayeen, macaamiishana waxay helayeen xuquuq badan ka maqneed oo ah qofkii intuu isku dabawadi lahaa 2, 3, 4 telefoon wuxuu helayaa hal sim card inuu maaragtay shirkad kasta oo kula hadlo. cillad kale oo ka dhalatay dhismaha guddigan waxay ahayd inaan la magacaabin xubintii 9aad ee ka mid noqon lahayd guddigaasi. kursigaasi oo ilaa haatan bannaan. waxaa kaloo cilladi ka soo baxday sharciga isgaarsiinta qaranka, iyadoo nuqulka uu saxeexay madaxweynaha Soomaaliya 2 bishii Oktoobar 2017 iyo nuqulkii uu ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya aysan iswaafaqsanayn. xubinta 9aad bal waxa loo magacaabi waayo wax yar faahfaahin ka bixi. xubinta 9aad waa runta lama magacaabin. waxaana loo magacaabi waayey waxaa jiray nuqulkii ka soo baxay madaxweynaha guddoomiyihii hore baarlamaanka ugu dambeeyey xafiiskiisa markii la gudbinayay loo gudbay madaxweynaha soo u seexo, kadibna kusoo baxday faafinta rasmiga. qodobkaas wuxuu khilaafsanaa kii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ayuu khilaafsanaa. marka madaxweynuhu nuqul qalad u saxeexay, sax miya? ma dhihi karo nuqul qalad u saxeexay, laakiin qodobkaas oo kamid ah qodobka 10aad xubinta ka imaan lahayd qareenada ma aheen tii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ma ahen, laakiin waa farqo yar oo hal qayb yar section yar kamid ah qodobka 10aad oo ah xubnaha ka kala imaanayo xubinta qareenada ayaan waafaqsaneen sida meesha ka imaanaysa ayaan waafaqsaneen sida maaragtay labadii gol isku soo raaceen. taasna marka guddoomiye markaan kala hadalnay wuxuu noo sheegay inuu ahaa qalad maaragtay taasna markii la qoray lama sixi doono. marka qaldaad yar ah marka waa iska dhici karaan, laakiin ma dhihi karno maaragtay nuqulka qalad ma ahan. nuqulka waa 70 qodob oo mid kasta farqooyinka intaas le, laakiin waa hal sadar oo qaldamay dhammaan maaragtay ma noqon karto, intii kale ma harantinimay karto. laakiin wada tashi la'aantu ma ahayn oo keliya wax ku kooban hay-adaha iyo shirkadaha cabanaya, balse waxaa kale oo muuqatay kala aragti duwanaansho madaxda wasaaradda laftooda markii la magacaabayey guddigan. galka baaristu waxa uu helay warqad uu qoray wasiiru dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xildhibaan Cabdulaahi Bilanuur toddobaadii uun kadib markii wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay guddiga maamulaha ee isgaarsiinta qaranka. wasiiru dowluhu waxa uu warqadaas ku sheegay inaanu wasiirku kala tashanin magacaabista guddiga. waa horta wixii arrinkaas ku saabsan waxaad kala hadli doontaa wasiiru dowlaha. warqadaas aniga waxaan ku arkay baraha, kadibna wasiirka waa ka wada hadalnay, waana dhamaysanay, waana arrin hadda isku meel aan kasoo wada jeedno. sideedana dad howl loo wada diray aragti waa ku kala dugnaa karaan, ma aha in aragtida lagu kala tago. arrintaasna waa ka wada hadalnay, haddana waxaan maaragtay isku sii ayaan wax ugu aragnaa. arrinkaasna waa qodob hore loogu soo gudbay. haddii aad faahfaahin dheeraad iyo wax ugu baahan tahay wasiir dowlaha inaad ka wareysatid ayaan jeclaa lahaa, laakiin wax maaragtay cudur iyo cillad ah oo hadda jira ma jiraan. bishii August 2018 booqasho waxaad ku tagtay Puntland.
waxaad heshiis wada saxeexateen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland qodobada aad wada saxeexateen mid kamida qodobka koowaad waxaad qorteen xeerka waxa laga hadlay xeerka isgaarsiinta qaranka waxyaabaha aad ku heshiiseen waxa kamid ah qodob koowaad in dib u eegis lagu sameeyo xeerka isgaarsiinta dawladda federaalka Soomaaliya qodobada ay ka qabaan cabashada dawlad goboleedyada iyagoo la tashan doona sharci yaqaanada qaabka iyo habka ugu haboon oo loo waajihi karo wax ka bedelista sharciga iyo dib u furidiisa marka sharcigan la leeyahay dib ha loo furo dib ha loo eego waa midka baarlamaanku ansixiyay madaxweynuhu saxeexay sax harun sidoo horta waa runta wasiirka waxay nataan xasuusto bishii August 4 garow aan tagay aynu ka wada hadalnay qodobkii koowaad aan ku heshiinay ayuu kamid ahaa runtii haddii ay jirto cid maamul goboleed horta lagala tashaday waxaa kamid ah maamul goboleedka Puntland madaxweynihii hore ee markaas joogay aynu ka wada hadalnay oo hataa qoraal uu kufiyay laakiin haddii wasaaradii ama asigoo markaa iyo cid kaleba haddii hadashay wax ay ka keenaan anaga markaas waxaan diyaarinaynaa inaan meeshooda ugu tagno aynu ka wada hadalno sida arrinta waxa la garow ayaan isku tagnay waana ka wada hadalnay in wasiirku waana isku afgaranay waxaan u sheegay sharci kasta aayad quraan ma sharci kasta mar kastaba waxa lagu sameey karaa dib u eegis qodob ama wax laga bedeli karaa ama qodob wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac iyo nidaam loo mara ayuu leeyahay marka waxaan ku yiri nidaamkaas u mara hatta wax laga bedeli karaa dastuurka ayaa wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac loo maro in dastuurka qodobkaas maartay wax laga bedelo marka ma aha aayad quraan ah waxa maartay waa sax waan u sheegay laakiin waxaan rabnaa in habraaci loo maro haddii cabasho ay qabaan waqti kastana waa u furan yahay in sharcigaas habraaci loo soo maro haddii wax ka qaldan yihiin la iskuna raaco labada gole isku raacaan in aragtida sax ay tahay waa la bedelay aayad quraan ma laakiin waa lagala tashtay Soomaa intaan uusan baarlamaanka xataa imanin miyaan sidaad sheegtay waa dhammaan waa kala tashanay laakiin haruunow qofku waa soo koca karaa wax kale ayuu tirsan karaa laakiin annaga ka federaal ahaan maadaama aan nahay hooyadii dalka Soomaaliyeed ee dawladii u dhaxaysay gobolada haddii maamul goboleed ama shirkad ama cid cabasho waxay xaq noogu leeyihiin inaan la fariisano qancino kala hadalno meelna wax isla dhigno oo aan dhehaynin shalaan wada hadalnay waa xiran tahay marka haddaan shalay wada hadalno wax uu soo kocday waa inaan u tagno haddana maartay aan ka qancino oo kala hadalno dhinaca kalena hay'adda isgaarsiinta qaranku waxay bishii Maarso ee sanadkii hore la soo wareegtay astaanta qaranka ee shabakadda caalamiga ah .so oo ay hore u maamuli jirtay shirkad lagu magacaabo Sonic oo u taagan Somali Network and Information Center laakiin soo wareejinta astaanta qaranka ma ahayn mid u dhacday sidii ay dawladdu doonaysay baaritaan ay sameeyeen baarayaasha dawladda ka hor intii aan soo wareejintu dhicin waxaa lagu ogaaday in 2 koonto oo hay'adda Sonic ay ku lahayd dalka Djibouti lagala baxay lacag dhan $60,000 lacagtaasi oo si aan sharci ahayn ay ula baxeen qaar ka mid ah shaqaalihii shirkadda Sonic soo wareejinta xafiiska Sonic waxa hay'adda isgaarsiinta qaranka u saxeexay maareeyaha hay'adda Cabdishaaq Axmed Roble waxaan kaaga sheegi karaa intaan ogahay markii Sonic ama gaar SO la aasaasay inta ogaalkay ah ilaa hadda markii lala soo wareegay wax dhaqaale ah oo dawladda Soomaaliya ka soo galay inaysan jirin waa sida 100% ma hubo laakiin waa sida aan maqlo dadku dhan ay aaminsan yihiin fiiska laga qaadanayo hadda markaan la wareegnay waxaan la wareegnay dhaqaale yar oo ku jira account ku taal Djibouti iyo mid ku yilay xamar mas-uuliyadda aan qaadana waxay ahayd wixii maalintaa ka dambeeya wixii dhaqaalaha ka yimaadeen anagu mas-uul ka nahay wixii intaa ka horeeyana hadda dhowrka guud iyo mataqaanaa gariiqaanku iyo dawladduba siday unba macaamil lahaayeen ee ay mas-uuliyadda qaadaan anaguna mas-uuliyadda qaadna wixii markaa ka dambeeya inaan mas-uuliyadda leena markaan la wareegnay waxyaabaha noo soo baxa waxaa kamid ahaa in dayn uu leeyahay oo shirkadii maamulayso cloud register ay dayn ku leedahay .so domainka maamulkeedii in macaamiisha oo registrarska register gareeyay dadka websiteska haysta deposit u yaala qaarkood oo maqan yahay intaasna ayagoo document garaysan waxaan u gudbinay dhowrka guud markaan la wareegnay kabacdina xisaabteeda anaga hayna
deynta ay ku leedahay shirkaddu ilaa hadda may taagan tahay intay la eg tahay deyntaas may deyntu waa la bixiyey deyntu waxay ahaaday konton iyo shan kun oo dollar marka lacagtan Jabuuti le laba account bay ku jirtay dad baa kala baxay ilaa 4 qof maxay ahaayeen dadka shaqaalaha ah dadkaas dad ka shaqeeya ama saan ugu fahamsanahay la shaqeeyay wasiirkii hore ay ahaayeen marka dad waxa gabar waxaa jirta qof xisaabiyo ka ahaa lagula yiri waxaan ugu yiri cabdicaiis oo maamulo ka ahaa waxaa jireen mataqaanaa dad dhalinyara oo xirfadleeya oo ka shaqeeya oo dadka Soomaaliya wax ka maamula ah marka individualska iyo wixii qaateen iyo waxa inta anagu aragno nafsaad ka hayno waxaan u gudbinaa daroorka guud waa gartay waxay qaateen lacag marka la soo geeyo dhan 59961 $, bay kala baxeen midba qayb uu kala baxay number iskor kama hayo laakiin waa ku dhawaad galka baaristu waxa uu helay magacyada shaqaalaha afarta ah ee lagu tuhmayo inay lacagahaasi la baxeen waxaana xilligan baaritaan ku wada xeer ilaalinta Soomaaliya mid kamid ah afartaasi qof waxa uu la baxay lacag dhan $16,500 waxa kale oo isku dayay inuu lacag dhan $85,000 uu la baxsado dhinaca Somaliland lacagtaas oo markii dambe ay dawladdu ku guuleysatay inay soo celiso haddaba sida loo maamulay Sonic iyo lacagaha la qaatay waxaan ka wareystay agaasimihii hay'adda Sonic Cabdulcaziz Xuseen Cumar oo haatan ku nool Australia Cabdulcaziz waxa uu hay'adda soo maamulayay tan iyo sanadkii 2015 Cabdulcaziz Xuseen Cumar kama mid aha shaqaalaha lagu tuhmayo inay lunsadeen hantida dawladda taariikhaha lacagta lagala baxay akawnada dawladana waxay kala ahaayeen 10kii bishii Maarso 2018 oo ku beegnayd 2 maalmood kadib markii uu xil wareejinta sameeyay Cabdulcaziz Xuseen Cumar waxaana taariikhdaasi lala baxay lacagtii ugu badnayd oo dhannayd $39,461 lacagtii ku xigtay waxaa lala baxay toddobaad kadib oo ku beegnayd 27kii bishii Maarso waxaana koontada Jabuuti lagala baxay $16,500 labada lacagood ee kale oo kala ahaa $1,000 iyo $3,000 waxaa lala kala baxay 10kii iyo 12kii bishii Abriil 2018 maalinta anigu xilka wareejiyay wixii ka dambeeyo igagama furan waxada because anigu xilkii waan wareejiyay waxaan ku wareejiyay hay'ad dowladda federaalka Soomaaliya soo magacaawday haddii markaas wixii aniga markii iga dambeeyay waxay dhacay waxa wada hadalkooda iyo xisaabtooda iyo ka jawaabistooda iskala hay'adii aniga igala wareegtay iyo dadka aad adigu sheegayso oo aad leedahay waxba la bixin anigu wali ma hubo in wax la bixin adigu baan ka hayaa tada aan ka maqlayaa marka iyagu baa wada hadaltooda wada xisaabtami doona laakiin anigu inta maamulka joogay haddii wax yani afgaran waa ay dhacay ama wax isqalad istoomareen ay dhaceen anigu taaba xaq leeyahay leeyahay inaan ka hadlo qoraan wada qoranay hay'adda isgaarsiinta qaranka qoraalkaasaan ku kala wareegnay xilka lagu ku kala wareegnay akoonada wixii yaala waa guddiga financial sheegay iyagana markii guddiga ku magacaawday guddigaas baa hadda sida xogta ay sheegay keenay wixii la baxay wixii ka dambeeyay laakiin anigu 8 bishii wixii ka horeeyay waa halkeedii laakiin wixii ka dambeeyay waxa xisaabtada iska leh hay'adda marka hadda xilka haysay maamulaysay ka shaqeynaysa iyo dadku adigu aan leedahay waxbay la maqayn iyo waxbay laakiin anigu ma hubo inay la bixin mana ku cadeyn karo mana hubo ma joogiyo access uma leeyahay ka shaqeynteeda iyo ogaanteeda dokumentiga dawladda isaa ugu taala marka dadkan yaa shaqaalaysiiyay sidoodaba ma u shaqeyn jireen hay'adda marka aad u joogtay panelka iyo maxaa la dhigay iyo weligaada sideeda markii la sameynayo hay'ad ama guddi la sameynayo waxay ka kooban yihiin tiro koox ama dad badan ay ka kooban yihiin ama dad yar ay ka kooban yihiin tiro bay ka kooban yihiin tirada bay ka mid ah dadkii ka shaqeynayay waxaana doortay guddigii markaas joogay marka dad waxay ahaayeen ka shaqeynayay hay'ad marka magacyada aan sheegay way ka shaqeyn jireen meesha oo hadda ku sheegay waa dad hay'ad igala shaqeynaya waa okay laakiin aad maad shaqaalaysiin cid shaqaalaysiisa ma taqaan ma taas anigu ma ana shaqaalaysiin guddigan waxaa magacaabay wasaaradii markaas xilka la yani aan wareegayay joogtay magacaawday xeer ilaalinta Soomaaliya waxay sheegtay inaysan xilligan ka hadlaynin baaritaanka ku saabsan lacagahaasi la lunsaday